Kii dilay taliyaha saldhigga Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa oo isna la tooganayo. Qaabku u dilay iyo sababta uu u dilay iyo dadkii ka dambeeyay ayaa la ogaaday. Xog cusub ayaa ka soo baxaysa waxaana rabaa inaan kula wadaago xogihii ugu dambeeyay ee dilka taliye Cabdi Cali Nuur. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen? Ehelada marxuumka oo hadlay sidoo kalena sheegay qaabka dilku u dhacay iyo sababta loo dilay. Haddaba inta aanan kula wadaagin xogtan reerka uu ka dhashay iyo reerka dilay intaba fadlan muuqaalkan share gareey saaxiibada la wadaag haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waa maasantahay. Shalay barqadii waxaa isaga oo jiifa la soo gaaday kadibna tuuray lagu dilay Allah u naxariistee taliyihii saldhigga Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa Cabdi Cali Nuur. Dilkiisa waxaa geystay askari ka tirsanaa ciidamada oo markaasi xabsiga ku jiray oo isagu oo xiray sababo la xiriira qaladaad uu sameeyay askarigu. Askariga dilka geystay ayaa la sheegay inuu yahay isbatoore saddexaad ama kormeere saddexaad ama saddex alif le Maxamuud Cali Nuur. Haddaba xog ayaa ka soo korortay qaabka uu dhacay dilku waxaana soo baxay shakhsiyaad kale oo la xiriirinayo dilkan inay ka dambeeyeen oo barnaamijku uu yahay shaqool. Haddaba waxaa la sheegay in khilaaf soo kala dhex galay askariga falka geystay iyo taliyaha oo la yiraahdo gaashaanle ama Korneyl Cabdi Cali Nuur oo ah shakhsi degan aqoon-yahan ah dhowr meel oo ka tirsan demi-baarista Somaliland ka soo shaqeeyay aqoon-yahan ah 4 saldhigna ka soo xukumay magaalada Hargeysa oo leh xifrad ama aqoon ku filan. Waxaa la sheegay in askarigu uu gambis ama shaqada uga gambiyay kadib baafin la saaray kadib lacagii laga jaray uu aflagaado iyo xadgudubyo sameeyay kadibna la xiray. Isaga oo askarigu xiran yahay taliyuhuna jiifo ayaa la sheegay inuu tuuray isagoo wata uu u yimid kadibna ula dhacay. Waa la qaaday isbitaal ayaa loola orday. Waxaa la ogaaday inuu geeriyooday kadibna CID ayaa baaris ku sameysay haatan waa uu xiran yahay. Inta aanan u gudbin qorshaha iyo waxa socda iyo reerkiisa sidee ayay wax u dhaceen. Markuu falku dhacay goobjoogayaal ayaa joogay haatan waa xiran yihiin. Waxaa la sheegay in ninku uu xirnaa waxaa la iska rabaa cidii soo deysay marka koobaad ee uu ogolaatay inuu soo baxo kadibna falka uu geysto. Tan labaad cidda siisay midida ama midi inuu haysto uu ogolaatay iyadana baaris ayaa ku socota dadka loo haysto dadka xiran ayaana markaasi kiiska loo haystaa oo wax ka badan 1 iyo 2 ayaa kiiskan loo haystaa haatan. Yacni midida uu soo qaatay cidda siisay ama cid u gudbisay sababtoo ah xabsiga looma ogolo waxaan cunno ahayn in loo gudbiyo xitaa cunnada waa la baaraa. Askarta qayb kamid ah soo deysay qayb kamid ah ayaana hubka u dhiibtay. Korneylka soo jiifo ayaana la gaaday kadibna tuuray ayaa la dhacay ugu dambeynna nafta ayaa ka baxday Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. Intaa kadib maxaa dhacay? Markii la geeyay dabcan ninka la dilay iyo yacni kan wax dilaba waa isaaq ninka falka geystay ee Maxamuud Cali Nuur waa askari ka tirsan ciidanka Somaliland beel ahaanna waxa uu ka soo jeedaa beesha Garxajis Habar Yunis halka Korneyl Cabdi Cali Nuurna uu ka soo jeedo beesha Habar Awal Sacad Muuse Jibriil Obokor oo ka siiyay reexareed. Intaas marka ay marayso social media ama baraha bulshada waxaa ka bilaabday kacdoon iyo waliba gudaha magaalada Hargeysa waji kale ayuu yeeshay qaarijinta taliyaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. waxaana jiray ilaa iyo 9 qof oo ku beel ah marxuumka maanta uu 9 ku yahay oo ilaa iyo intii la doortay ciro lagu dilay gudaha magaalada Hargeysa ama qaarkood ay dhinteen oo kamid yahay askarigii ka tirsanaa madaxtooyada oo markaasi asaga iyo gabar laga dhaxelay iyagoo meyd ah gaari. Xogaa buuq ayaa dhashay dad kale oo kiisaskan geystay oo xirxiran waa jiraan laakiin intaas 9 qof waxa ay ku heeb yihiin Korneylka maanta la khaarijiyay. Ehelada marka marxuuminta ayaa hadlay ama marxuumka waxa ayna sheegeen in muddo 3 maalin ah ay qabteen in maxkamad lagu geeyo ragga eedeysan iyo dambiilahaba xukunno kala duwan lagu rido 3 maalin gudahoodna marxuumka iyo gacan ku dhiiglahaba mar qura la isla aaso. Waxaa hadlay walaalka marxuumka iyo cuqaasha chief caaqilka saraakiisha siyaasiyiinta beesha ugu jira dhammaantoodna waxa ay codsadeen in kawaanka ama tiirka la geeyo oo la qisaaso eedeysanaha falkan geystay.
dabcan dowlad inay tahay Somaliland cidna daha kama saarna inuu yahay meel horumar ka jiro, sharci ka jiro, aan uga duwan maamulada ama nidaamyada kale marka laga reebo Djibouti ee Soomaalidu degto, ha ahaato Ethiopia, ha ahaato Soomaalidan kale, ha ahaato Koonfurta. Waxaa shaqeeya sharciga iyo dimuqraadiyadda. Meel kastana qabiilaa jira oo mar walba qabiil waxaa lagu farsamay, laakiin markii maamul ahaan la fiiriyo waa meelaha ugu sarreeyo oo nabadda iyo degenaanshaha ka jiraan. Kiiskan inta badan uma eka wax sababi kara gacan ka hadal, laakiin waxaa jira kacdoon iyo caro ka dhalatay dilka korneylka. Haddaa aragto social media, haddaa aragto cuqaasha dhalinyarada qaabka uga falcelinayaan, wax kastana waa ka imaan karaan. Laakiin haatan dowladdu waxay ku dadaaleysaa sida aan xogta ku helayno in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad lagu geeyo eedeysanaha, kadibna xukun degdeg ah laga soo saaro. Wixii ka soo kordha xogaha iyo macluumaadka dambe ayaan kugula wadaagaynaa. Channelkeena Xalana Media ku soo biir, share gareey, saaxiibada la wadaag. Waa mahadsantahay.